dilkii gudoomiyaha gobolka Banaadir ee dhawaan dhacay waxa uu dhaliyay su'aalo badan oo ay ka mid yihiin intee ayay la-eg tahay ku dhex jiritaanka al-shabaab ee hay'adaha dawladda. gabadha geysatay qaraxa waxay muddo badan xubin firfircoon ka soo dhex ahayd bulshada iyadoo la kulantay madaxweynayaal, wasiiro iyo mas'uuliyiin kale. ugu dambeynna waxay noqotay xubin sare oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir. haddaba imise qof oo la mid ah Basiire Cabdi Maxamed oo magaceeda dhabta ah u ahaa Maryam iyo gabadha kale ee kalkaaliyaha u ahayd Degan oo magaceeda dhabta ah u ahaa Hodan ayaa ku dhex jira laamaha dawladda. maxaa la samayn karaa si loo ogaado khatar intee leeg ayay ku yihiin hay'adaha dawladda iyo shacabkaba? waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. kadib qaraxa uu ku dhiman doono gudoomiyihii gobolka Banaadir Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Cabdiraxmaan Yariisow, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu soo saaray qoraal uu ku farayo xukuumadda inay si degdeg ah ula timaado qorshe dhammaystiran oo ku aadan hanaanka la dagaalanka dadka sida tooska ah iyo sida dadbanba u gacan siiya argagixisada al-shabaab, sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaas ka soo baxay xarunta madaxtooyada. madaxweynuhu waxa uu yidhi suurtagal ma aha inay nagu dhex jiraan dadka gacanta siinaya argagixisada, dadkeennana dhibaataynaya. waxaa laga sugayaa xukuumadda inay la timaado qorshe lagula dagaalamayo dadkaasi. haddaba intee ayay leegyihiin dadkaasi? dhibaato intee leeg ayaa ka iman karta? jenaraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare waxa uu hore u soo noqday taliyaha hay'adda nabad sugidda qaranka, waxaana uu isku dayay inuu diiwaan geliyo dadka looga shakisan yahay inay al-shabaab xiriirka la leeyihiin ee ku dhex jira hay'adaha dawladda. dadku saddex nooc bay ahaayeen. qolo oo aan u arkaynay in la cabsi geliyey amba duruuftooda dhaqaale laga faa'iidaystay oo sidaa ku shaqaynaysay oo already shaqo galay fayl bay lahayd. waxaan ka fikiraynay shuruucdii iyo systemkii loo mari lahaa in la soo qabto oo su'aalo la weydiiyo. caddaymankii markaa lahaayeen la hor qayb bay ahaayeen. qayb waxay ahaayeen qayb markaa shaqadu ku socoto annagana aan noo soo sheegin, lala soo xiriiray, ilmahoodii lagu handaday. waa nimankan dee waxay dadka ku handadayaan, qofka waxay ku handadayaan meel kastoo qofku ka jirba jira ayay ku handadayaan. qolo kalena waxay ahaayeen qolada saddexaad oo qolo sidaas oo kale loola soo xiriiray, la cabsi geliyey, laakiin iyagu noo yimid oo noo sheegay in arrintaa haysato. ayagana qaab gaar ayaan ula tacaali jirnay. amnigoodaan si gaara maaragtay amnigooda iyo meelaha laga soo galay iyo meelaha laga handaday si gaara ayaan amnigooda ula socon jirnay. dad gaara oo shaqada la haya oo xiriirka inay sii wadaan oo ayagana shaqada la sii haya oo ilaa qofkii handadaaya iyo dadkii handadaaya laga daba tago. unit gaara ayaa u samaysnaa arrintaas. dadka qaar aan interrogate garayno aan soo qabanay, wasiire ayay chief security u ahaayeen qaarkood. chief security ama chief protocol ayay dad wasiira u ahaayeen, qaarkood dad kaloo madax ayay u ahaayeen. markii aan dee soo qabanay oo interrogate garaynayna waxaa dhib naga qabsaday dad madaxda ahaa oo ay dadkaa la shaqeeyeen. dabayaaqadii 2015 ilaalada madaxtooyada iyo kuwa gobolka Banaadir waxaa loo xil saaray sugitaanka amniga xarunta gobolka. hase yeeshee ilaalada gobolka iyo kuwa madaxtooyada labadaba waxaa munaasabadda ka horgalay shaki weyn oo dhinaca amniga ah. kadib markii nin munaasabadda ka dhex cadcadaa la isku qabtay inuu ka socdo madaxtooyada iyo inuu matalayo gobolka, jenaraal Tuur Yare ayaa gacanta ku qabtay kiiska. waxaan helnay warbixin ah in qof aad looga shakiyay dhaqdhaqaaqiisa oo dadka hawsha wada ka mid yahay. unitkeeni gaarka ahaa dadkii brotokoolka gobolka ay si hoose waxay u weydiiyeen waayo qofkaa ma taqaaniin. waxay u sheegeen qofkaasi wuxuu ka socdaa koofiye casta madaxtooyada ka socota ayuu ka mid yahay, sidaasuu noo sheegtay. si hoose ayay haddana koofiye casta ugu tageen waxay dhaheen qofkaa ma taqaaniin, maya gobolkuu ka mid yahay oo qolada gobolka oo brotokoolka ayuu ka mid yahay. marka kuwii gobolkan wuxuu isaga dhigay nin brotokoolkii madaxtooyada ka socda oo especially dadka ciidankan koofiye casta si gaara ula shaqeeya ah. qoladii koofiye casta brotokoolkii madaxtooyada ka socotana wuxuu isaga dhigay inuu gobolka ka mid yahay. baaritaankaas waxaa meesha ka dhacday in qofkii lasoo qabto, dad kaloo related la ahaa lasoo qabto, baaritaanna la geliyo. dabcan halkaana waxay dhacday in xafladii ay dhowr saac dib u dhacdo. ninkaas ma qarax baa ku xirnaa? qarax kuma xirnayn, laakiin baaritaanadii iyo wixii waxaa ka soo baxay inuu kan qaraxa fududay doono oo qofka oo qaraxa fududay doono uu ahaa lahaa. mar haddii uu kalsoonidii helay qoladii brotokoolka, mar hadduu helay kalsoonidii qolada kale ee ka socotay madaxtooyada, waxaan u garanay qofka inuu ahaa qof fududay rabay wax imaanaya, asigoo ka faa'iidaysanaya galaangalkiisa iyo in lagu aaminay wax ka socodsiinta xafladaas. xafladdaa marka yaa iman lahaa oo ka qayb geli lahaa? xafladaas madaxda dalka ugu sarreysa ayaa imaan lahaa. dabcan
haddii koofiyacas ay tagto meel waad fahmi karaysaa. waxaan maqlay madaxweynuhu inuu tegi rabay xafladda. waa sax waay madaxweynaha tegi. khubaradu waxay aaminsan yihiin in waxa ugu weynay al-shabaab ay ka faa'iidaysanayso ay tahay laamaha amniga ee daciifka ah iyo nidaamka hubinta shaqaalaynta oo aan jirin. laakiin al-shabaab kuma tiirsano oo keliya dadka shaqooyinka ka helaya laamaha dowladda, hase yeeshee waxay awood u leeyihiin in kuwa u shaqaynaya dowladda ay howlahooda u fuliyaan. tusaale waxaan u soo qaadan karnaa cabdiweli maxamed macow, madaxii amniga ee garoonka diyaaradaha muqdisho, oo bishii Febraayo ee 2016 fududeeyey qaraxii lagu soo rakibay kombiyuutarka ee lala beegsaday diyaaradda Dalo Airlines. haatan cabdiweli waxa uu ku xukuman yahay xabsi daa'im. 8 bishii Julaay 2014 waxaa al-shabaab weerar culus ay ku qaaday madaxtooyada Soomaaliya. weerarkaasi waxaa dadkii loo qabtay ka mid ahaa xasan muxiyadiin xasan oo u shaqaynayay shirkad kuwa isgaarsiinta ah kana howlgasha madaxtooyada gudaheeda. xasan muxiyadiin waxaa loo xukumay inuu weerarkaasi fududeeyey. bishii Agost ee 2014 waxaa lagu fuliyey dil toogasho ah. sanadkii 2014 hay-adda niisa waxay qabatay sargaal sare oo ka tirsanaa hay-addaasi laguna magacaabo kabtan cabdisalaam maxamed xasan oo lagu helay inuu xogo ku saabsan niisa uu u gudbiyey ururka al-shabaab. xogahaasi waxaa ka mid ahaa aqoonsiga xubnaha u shaqeeya niisa, magacyo iyo sawirro shaqaalaha hay-adda ah. saraakiil ka tirsan amniga Soomaaliya waxay ii sheegeen in xogtaasi ay dhaawac weyn gaarsiisay hay-adda niisa. sargaalkaasi waxa uu xilligan ku xukuman yahay xabsi daa'im. macallin Siciid Cabdulla Dilib waxa uu hore uga soo tirsanaa ururka al-shabaab, isagoo goor dambena gacansaar la yeeshay Daacish, inkastoo markii dambe uu ka baxay isla markaana uu haatan la shaqeeyo dowladda Soomaaliya. waxa uu ka warramayaa xeeladaha ay adeegsadaan kooxaha argagixisada ah si ay gacansaar uga helaan dadka ku dhex jira dowladda. infiltrationka maaragtay saddex qaab ma taqaanaa horta dowladda ku soo dhex galaan. waa ikhtiraaq iyo tajniid iyo muxuu ahaa iyo camiil. waa qof ma taqaanaa kow inay mataqaana infiltration sameeyaan qof intii soo dirsan dowladda uu soo dhex galo maaragtay, iyo qof dowladda ku jiro in mashruucooda ka gadaan, ama qof dowladda ku jiro oo inay lacag siiyaan leeshiyaan wuxuu rabaa aaminsanaado lacag maaragtay shaqadu qabanay lacag kaga gadanaya. marka waxay sameyn jireen markii hore maaragtay waxay aad u heli jireen maaragtay wax agency aad u heli jireen. horta waxay ku guul dareysteen inay ikhtiraaq dowladda ku sameeyaan. way soo rag badan ay soo direen maaragtay dowladda soo dhex galay way jiraan, way ku sabri waayeen. midkii la soo diro marka xogaa markuu joogo iska laabtaa. meesha iskuul fiican way ka keeni waayeen. recruitment-ga maaragtay taasna way ku fashilmeen. laakiin waxay aad u heli jireen maaragtay agency-ga qof dowladda ka tirsan oo military-ga ama meel kale joog inay wacaan maaragtay macluumaad ka qaadaan, inuu wax u fududeeyo, inuu wax u gudbiyo, waxaas oo kale aad u heli jireen marka hore. maxay uga bedeshaan lacag intee leeg? wallahi wax saas u badan maaha. $200 wax saas 200 300 wax saas siya. waxaa kaloo haddaba xubnaha al-shabaab ee ku dhex jira dowladda Soomaaliya saacida isbedelada maamulada ee joogtada ah, sida uu sheegayo Generaal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare. dalkeena saad og tahay 4 sanaba isbedel weyn ka dhaco meel kasta taabta oo ilaa waax ilaa laan ilaa taabanaya mana ahayn dabcan sidaana sax ma ahayn. waxaa 4 sano gudaheed ka dhacay intaas oo mar taliyaasha la bedelaa, intaas oo mar ayaa wasiirada la bedelaa, intaas oo mar ayaa maamulada hoose degmooyinka la bedelaa. marka horta waxa uu sahlaya inay systemka soo dhex galaan waxa waaye maalin kastaba dad cusub ay la tacaamulayaan ayagoo ay khibradooda wata oo isla dadkii 10 sano dadkii uga shaqeynaya arrimahaas ayaga 10 sano ilaa waxay shaqeynayaan ilaa waqti ku dhawaad ay shaqeynayaan. dadka ay ka shaqeynayaana waa dad cusub oo amba sanadkii 3 mar 4 mar cusub amba 4 sano wada cusub. marka cusaybka iyo isbedelada tirada badan oo imaanaya ayaa u sahlaya. maxaa yeelay aniga hadda markaan taliyaha ahaa waxaan hayay faylal aad u muhiim ah oo dadka ku dhex jira amba la tashkiiliyey amba oo ku socda tashkiilisku systemka ku dhex jira aan helayno xogahooda oo aan dabagal ku hayno. faylashii caynkaas ahaa dabcan faylashii aan ku wareejiyay bay kamid ahayd taliyaha iga dambeeyey marka arrimahaas in uu waqti siiyo waqti bay ku qaadanay. waxaa laga yaabaa xaaladii markaa taagneed doorashadii iyo wixii xaalad dalku markaa ku jiray inay ka mashquuliso inuu faylalka caynkaas dabagalo. waxyaabaha dhaca waxaa kamid oo anagu dareensanahay mar dambe in la dilay sargaalkii aniga waagaa faylasha ii hayay waa la dilay. waxa lagu dilo maxay ma dadkii baa ogaaday oo faylashooda hayay si kale loo dilay? waa arrin kaloo su-aasheeda mudan. dhibaato kale oo haysata hay-adaha amniga ayaa ah inay si dhib yar ku shaqaalaysiiyaan dadka ka soo goosta kooxaha argagixisada, kadibna si fudud lagu aamino iyadoo loo magacaabayo jagooyin sare, halka kuwo kale ay marin u helaan madaxda sare ee dalka iyo kuwa amniga. Generaal Tuuryare waxa uu ka mid ahaa saraakiil ka badbaaday nin ka soo goostay al-shabaab oo isku dayay inuu isku qarxiyo. wuxuu iska dhigaya marka nin
maxaan ku idhaahdaa duruufo adag oo asiga loo geystay iyo dhib badan oo loo geystay iyo wax badan oo geysta darteed usoo goosanayay waxaa waagaa socotay oo waagaa aad u socotay inay dad badan oo ayaga kamid ay soo goosanayeen qoryo badan oo qoryaha uu la soo goostay qorigaas nuuciisa oo badanna waa ku tuhmayna meesha oo 4 ilaa 5 ah waan ku tuhmayna si marka loo dhiirigeliyo oo qofkii soo goosta oo qoriga nuucaasa la soo goosta inuu abaalmarin helayo waxaa laga lahaa ujeedada sargaalkii hayo marka loo xil saara ayuu aad soo kala dhigay sargaalkii wuxuu soo gudbiyay ribood ninkan in la aamini karo lana abaalmariyo abaalmarintii ayaa loo sheegay marka in ilaa taliyihii iyo saraakiishii ugu sareysay la abaalmarinayo sidaa ayuu ku yimid marka subaxda hore ayuu yimid taliska waa la keenay sargaalkii uu markaa la alamiitiyey wuu noqdo marka noqoshadii dambe ayuu isku soo xiray qalabkan ayadoo marka la sugayo in sargaalkii uu keeno la sugayo sargaalkiina waa sigi sugayo ayaa aad bay u foojigneed xarunta waaga amnigeeduna aad u sugnaa caadatanna waa sidaas ayaa iridii labaad ee xarunta uu yimid baaritaankii markii la geliyana waa la arkay marka sidaas ayuu ku qarxay meeshii uu ku qarxay waagaa wixii ka dambeeyana dee waxaa dhacday in aragti gaara iyo qorshe gaara laga yeesho dadka isa soo dhiibaya iyo dadka la aaminayo procedure baa laga dejiyey jirid baa loo sameeyey waagaas arrintaa waxay sababta marka in process adag la marsiiyo dadka isa soo dhiibaya jenaraal cabdalla maxamed oo hore u ahaan jiray taliya ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda federaalka looga baahan yahay inay la timaado go'aan siyaasadeed oo wax looga qabanayo dadka ku dhex jira dowladda ee gacan saarka la leh ama howlaha u fududeeya argagixisada. wallahi arrintaas horeyna madaxda xilligan jooga waan kala hadlay maadaama dadka qaarkood ay yihiin dad madax sare ah oo saameyn ku leh dowladda oo ama milkiilayaal la dhaho ama wax kaleba lagu sheegay dowladda saameyn ku leh waa arrin u baahan la dagaalanka argagixisada ee dowladda ku dhex jira wuxuu u baahan yahay go-aan siyaasadeed u baahan yahay wuxuu u baahan yahay go-aan madaxda sare ee qaranka inay ku qancaan khatarta ay ayaga ku dul fadhiyaan sii fahmaan ay go-aan ka qaataan inta aysan ku qarxin argagixisada waa miino mar walba qarxi karta inta aysan ayaga ku qarxin inay go-aan qaataan oo go-aan siyaasadeed oo maxaan ku idhahdaa lagu istaajinayo lagu joojinayo dadkan sharciga lagu horjeenaayo go-aankaas inay qaataan waa haddii ayaga go-aankaas qaadan karinna dhibkaan sidaanu u soconaa qof kaloo go-aan u qaadan kara ayaga ma jiro waa arrin go-aan siyaasadeed u baahan la dagaalanka argagixisada go-aan siyaasadeed u baahan yahay. haddii aan dib ugu laabto gobolka banaadir guddoomiyaha degmada xamarweyne cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir oo weerarkaasi ka badbaaday ayaan weydiiyey waxa uu ka yaqaan gabadha weerarka geysatay. horta waxay ahayd aniga wax badan kama aqaani laakiin waxaan ku ogahay inay ahayd gabar noole ah oo u dooda xuquuqda noolayaasha iyo dadka baahiyaha gaarka qabo qaabkaasayna kusoo gashay gobolka banaadir. guddoomiyaha gobolka ilaah u naxariisto wuxuu ahaa nin aad dadka ula tacaatufa dadka masaakiintana kaalmeeya uusan jeclayn dadka la dhibo wuxuu ahaa nin aad ugu naxariisto dadka baahiyaha gaarka qabo inta aniga aan ogahay marka qaabkaasi ayay kusoo gashay maadaama ay tahay gabar indhoola hamina leh oo aad u hadlayso gabar aad u hadal taqaanay ahayd way ka dhiiban jirtay communitiyo markii barnaamijkan tubta la qabanayo communitiyadeeda way ka dhiiban qaabqaadan jirtay marka nagu hadda tuhun oo iga soo galay aan isdhahay gabadhaas maysan jirin maalintaas meesha la fadhiyay. aragtiyaheeda maxaa ka mid ahaa oo kuwa ugu caansaneed ka xusato? wallahi waxay dhihi jirtay degmooyinka oo kale dadka baahiyaha gaarka qabo in aan la dayicin inay awoodaan inay yihiin dad awooda inay wax bartaan hami ay leeyihiin aan meelahooda lagu dayicin la soo aruuriyo garab la siiyo wax la baro ayna awood u leeyihiin ay leeyihiin dad wax baran karo diyaarna ay u yihiin waxyaabaha noocaasi ka hadlaysa. al-shabaab marna ma ka hadashay ama arrimaha amniga iyo sida wax looga qaban kara iyo arrimo amniga ayadoo ka hadlayso weligayga ma arag shirar amni ahna ayada shaqa kuma lahayn. waa gartay markii ugu horreysay aad aragto goormeed adiga? anigu waxaan gobolka ka hor banaankaasaan isaga arki jiray laakiin shaqadan gobolka markay kusoo biirtaan koran ka arki jiray kulli maadaama ay dumar tahay dhanka waxay ka dhaweyd dumarkay ka dhaweyd. weligaa marna ma la sheekaysato sheekamayda dhex martay? maya weligeeda sheekana ma dhex marin. kolley dacdadan wax badanaa laga baranaa sida ay wax u dhaceen waxay noqon doontaa cashar ayay noqon doontaa oo hay-adaha amnigana ay wax ka bartaan maamulkana uu wax ka barto.
barnaamijka galka baaristu waxa uu la xiriiray laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya waxa kale oo uu la xiriiray maamulka gobolka Banaadir dhammaantoodna waxay ku gacan sayreen inay waraysi siiyaan barnaamijkan galka baarista su'aalaha aan doonayna inaan wax ka weydiino waxaa ka mid ah sidee lagu shaqaalaysiiyey Maryan oo loo yaqaanay Basiire Cabdi Maxamed iyo Hodan oo loo yaqaanay Degan su'aalaha kale ee isweydiinta u baahan waxaa ka mid ah yaa soo xulay ciidanka amniga ee ilaaliya xarunta gobolka Banaadir sideedaba amniga gobolka Banaadir ma waxa uu hoos tagaa wasaaradda amniga madaxtooyada Soomaaliya mise gobolka marka ugu horeysa ee mas'uuliyiinta dawladdu ay doonayaan inay ka jawaabaan su'aalahaas iyo kuwa kale barnaamijka galka baaristu waa idiin soo gudbin doonaa